Fariintan caafimaad ee uu idiin soo gudbinayo Dajiya TV waxaan diiradda ku saaraynaa jadeecada iyo dhibaatooyinka ay geysato. Haddaba, waa maxay jadeeco? Jadeecadu waa cudur la socda qandho iyo finan kuwaas oo noqon kara halis. Waxaa sababa fayraska jadeecada waxayna si fudud ugu faaftaa dadka dhexdooda. Qofba qofka kale ayuu u gudbin karaa. Dadka halis sareysa ugu jira qaadista jadeecada waxaa ka mid ah dadka aan laga talaalin cudurka jadeecada, dhallaanka da'doodu ka yar tahay 1 sano ka hor inta aan laga talaalin cudurka jadeecada, haweenka uurka leh kuwaas oo aan weligood ku dhicin cudurka jadeecada ama aan horey loogu sameynin talaal cudurka jadeecada la xiriira, dadka qaba nidaamyo difaaca jirka oo daciifsan, dadka lagu talaalay nooca talaal ka mid ahaa oo la heli jiray xilligii laga soo bilaabo 1963 ilaa 1967 haddana aan dib talaal loogu sameynin, dadka dhashay ka hor 1957 waa kuwa guud ahaanba loo tixgeliyo inay yihiin kuwo ilaalsan. Ilaahay ayaa wax ilaaliye sababtoo ah iyagu waxay u badan tahay inay qabeen jadeeco markii ay yaraayeen. Haddaba, calaamadaha lagu aqoonsan karo cudurkan muxuu yahay? Calaamaduhu waxay bilowdaan ku dhowaadkii 7 ilaa 21 maalmood kadib markii laga helo fayraska jirka bini'aadamka. Jiraduna waxay sii joogaysaa laga bilaabo 1 ilaa 2 toddobaad. Jadeecadu waxa ay ku bilaabanaysaa dareere sanka ah, biyo indhaha ka yimaada, qufac iyo qandho daran oo aad qofka u dareemo. Kadib 2 ilaa 4 maalmood waxaa soo muuqanaya finan gaduud ah, caadi ahaan ku bilowda wejiga kadibna ku faafa jirka hoose kadibna garbaha iyo lugaha u sii gudba. Finanku badanaa waxay sii joogaan 4 ilaa 7 maalmood. Dadka qaba jadeecada waxay yihiin kuwo cudurka ku qaadsiin kara 4 maalmood ka hor ilaa ku dhowaad 4 maalmood kadib markii ay finanku bilowdaan. Dadka qaba jadeecada sidoo kale waxay sameyn karaan jeermisyo dhegta ah oo fureenka ama gubasho iyo caabuq maskaxda ah. Gubashada madaxa. Jadeecadu waxay sababi kartaa dhicis ama dhalid hore oo ku dhacda haweenka uurka leh. Aad ayay u yar tahay dadku inay qabaan xaalado dhexdhexaad ah oo jadeecada ah taas oo aan la aqoonsan sida jiro jadeecada oo qofka aysan ku sii faafin inay ku dhacdo. Haddaba, sidee ayuu u faafaa cudurkan? Fayrasku wuxuu ku jiraa diifka sanka ku jira ama dhuunta qofka qaba jadeecada. Jadeecadu waxay si fudud ugu faaftaa tooska hawada marka qofka uu hindhiso ama uu qufaco. Dhibcaha waxay keeni karaan dadka kale sankooda ama dhuuntooda marka ay neefsanayaan ama geliyaan farahooda afkooda ama sankooda. Kadib marka ay ku taabtaan waxaa ka qaadi kartaa jeermis. Qofka qaba jadeecada wuxuu fayraska ku faafin karaa tooska waxyaabaha uu ku hindhiso ama uu ku qufaco, kadibna fayraska waxa uu si toos ah u aadaa dhinaca kale. Ilaa 2 saacadood ayuuna qaadan karaa in qofkaasi uu qaadsiiyo. Sidee loo aqoonsadaa cudurka jadeecada laguna daweyn karaa? Cudurka jadeecada waxaa lagu aqoonsan karaa baaritaan dhiigga lagu sameeyo, suuf baaritaan ah oo la geliyo gudaha sanka iyo baaritaan kadib lagu sameeyo oo laga baarayo fayraska. Badanaa dhammaan baaritaanadan waxaa la qabtaa isku waqti ama hal mar. Ma jirto daawo xadidan oo loogu talagalay jadeecada. Nasasho iyo in badan oo cabitaan dareere ah ayaa lagula talinayaa qofka qaba cudurka jadeecada inuu si weyn u isticmaalo. Maadaama fayraska sababa jadeecada daawo antibiyootik ahi loogu talagalay ma ahan faa'iido iyo mid waxtar buuxda u leh oo si fudud kaaga daaweyn karta. Haddii dhibaatooyinku sii hormarto sida oof-wareenka, waxaa loo baahan doonaa daweyn dheeri ah oo waxaad u baahan tahay inaad tagto goobta caafimaad ee kuugu dhow. Sidee jadeecada looga hortagi karaa? Jadeecada waxaa looga hortagi karaa tooska talaalka ee magaciisa loo soo gaabiyo MMR.
wuxuu kulmiyaa talaalka jadeecada ay la jirto talaalada loogu talagalay qaamo qashiirka iyo jadeecada Jarmalka. Gobolka Washington, dhammaan carruurta waxaa looga baahan yahay inay qaataan talaalka magaciisa loo soo gaabiyo MMR, taasi oo loogu talagalay gelidda iskuulka ama xarumaha daryeelka ee carruurta lagu hayo. Dadka qaba jadeecada waxaa qasab ku ah inay ka fogaadaan xiriirka ay la yeeshaan dadka kale, ayna ka fogaadaan meelaha dadweynaha ilaa iyo ugu yaraan 4 maalmood oo buuxda oo ay ka gudubto in la caddeeyo in ay qabaan jadeeco. Dadka laga helay jadeecada ama u malaynaya inay qabaan jadeeco waxaa qasab ku ah in ay joogaan guriga, ka fogaadaan meelaha dadweynaha, ayna si dhaqso ah ula tashadaan bixiyayaasha daryeelkooda caafimaad. Iska hubi inaad horay ka wacato dhakhaatiirta ereyadaada ka dhow si ay xaaladaada wax uga qabtaan, waxaana tani ay kaa caawin kartaa in cudurkan si fudud lagaaga daaweeyo. Talaalka jadeecada lagu bixiyo 3 maalmood gudahooda oo laga joogo maalinta la helay waxay dadku ku caawinaysaa ka hortagga jeermiska caafimaadka dadka aan uurka lahayn. Difaaca gulubulinta waxay tahay daweyn taas oo lagu isticmaali karo 6 maalmood gudahooda oo laga joogo maalinta la helay cudurka si loo ilaaliyo dadka khatar sareysa ugu jira dhibaatooyinka ka dhalan karta jadeecada. Haweenka uurka leh waxaa loogula talinayaa inay si weyn uga baaraan degaan cudurkan haddii dhalaankooda ay ku arkaan amaba iyagu ay isku arkaan. Inta badan markaad eegto goobaha caafimaadka waxaa muhiimad gaar ah ay siiyaan haddiiba laga helo cudurkan sida ugu habboon ee wax looga qaban lahaa. Carruur badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad walba waxa ay u geeriyoodaan jadeecada oo ah cudur marka la eego si fudud loo daaweyn karo, hase ahaatee dadka intooda badan aysan fahamsanayn in la daaweyn karo. Haddaba haddii aad aragto dad la daala dhacaya cudurka jadeecada, fadlan ugu baaq inay gaaraan goobaha ugu dhow ee adeegga caafimaadka laga heli karo. Waa ay fududahay daweyntiisa, balse waxaa ka horeysa inaad marka ugu horeysa adigu fahanto inaad la xiriirto goobta caafimaad ee kuugu dhow si ay kuu caawiyaan. Dalka Mareykanka inta badan culayska waxa uu saaraa sidii dadka qaba cudurkan ay dawooyin qasab ah u heli lahaayeen, isla markaana waxaa gebi ahaantoodba laga fogeeyaa goobaha dadka ay isugu yimaadaan si aysan u qaatinin. Sida aan kor ku soo xisnay, waxaa inta badan cudurkan uu ka mid yahay cudurrada sida fudud la isku qaadsiiyo, waxaana ka mid ah neefsashada qofka oo ku taabta iyo waxyaabo la mid ah. Balse marka uu faafayo ee qofka uu ku taabanayo waa marka qofka afkiisa ama sankiisa uu farta geliyay kadibna adiga uu kugu taabtay. Sidoo kale waxaa muhiim ah in nadaafadda kor loo qaado marka aad ogaato in qofkan uu qabo jadeecada, sida dharka oo la nadiifiyo, isla markaana gogashiisa qof kale uusan la wadaagin si uusan u sii faafin cudurka. Taladan caafimaad waxaa idiin soo gudbiyay Dajiye TV, waxaana uu ugu talagalay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka faa'iideystaan fariimaha caafimaadka ee muhiimka ah. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar oo asxaabtaada la wadaag barnaamijyada kala duwan ee muhiimka ah ee aan sida joogtada kuugu soo gudbino.